asalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walbo aad dunidan aad ka joogto kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan Shulamit Cohen Lulu iyo Muusaad. waa mid aad ka kororsan doonto wax badan oo ku aadan dhagaraha ay Muusaad u sameeyaan dadka Islaamka iyo howlgalladii ay ka fuliyeen qaar ka mid ah wadamada bariga dhexe. waxaana filayaa sheekadaani inay noqoto mid aad wax badan ka kororsan doonto. buugani waxaa qoray Xaatim Khouri waxaana tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. qaybtii hore waxay inoo joogtay iyada oo ragga oo idil Shulamit Cohen ay ku mashquulsanaayeen, haddana waxaa jira mid ka mid ah ragga xafladda ka soo qayb galay kaasi oo aanan marnaba aanan u soo dhowaanin Shulamit Cohen, balse kor kala socday dhaqdhaqaaqyadeeda oo dhan si weynna isha ugu hayay, sida inaad mooddo inuu neefteeda xisaabinayo. qaybta xigtaana waxay ku bilaabanaysaa ninkaasi wuxuu ahaa George Molkhu, waxa uu haystay dhalasho Faransiis ah, balse asalkiisa wuxuu ahaa Yahuudi magaalada Beirut ee xarun ay u ahayd, isagoo howshiisa ay ahayd sida Yahuudda uu ugu tarxiilin lahaa dhulka Falastiiniyiinta. waana shaqada ugu badan ee Shula Cohen iyo shabakadeeda ay qaban doonaan, inkastoo marka dambe xog laga heli doono lana qaban doono sirdoonka Lubnaan ay ku guuleysan doonaan gacan ku soo dhigidooda. Master George Molkhu da'diisu waxay ku sii dhawaanaysay afartanaadka, dhererkiisana dhexdhexaad yahay, madaxiisa dhowr xabo oo cirana ay ku yaalaan, wuxuu xirnaa ookiyaal madow. waxaa kaliya oo maankiisa ka guuxaya waxay ahayd sidii uu ula kulmi lahaa Shula Cohen, isaga oo doonaya inay ku caawiso islamarkaana ay ku garabsiiso howlaha halista badan ee gacanta uu kula jiray. George wuxuu gudagalay in uu ka fikiro islamarkaana naftiisa uu la xisaabtamo kahor inta uusan hor istaagin Shulamit Cohen. fikir yar kadibna wuxuu milicsaday xaaskiisii Anne Marie oo garab taagneyd, wuxuuna ku yiri isaga oo u tilmaamaya Shula, bal fiiri siday u qurux badan tahay una dhisan tahay ee ina mari aan ka fikirno qaabka aan ku baran lahayn iyada. markaas ayay xaaskiisii dhoolla-cadeen yar ay muujisay, waxaana ninkeedii ay ku tiri, waxay ila tahay inay tahay gabadhii aad raadin jirtay si ay kuuga caawiso howlahaada, sax? markaas ayuu George isagoo u jawaabaya xaaskiisii waxa uu ku yiri, waxay xitaa noqon kartaa xubinta koowaad ee danaha shabakadeena sahyuuniyadda. markaas ayaa xaaskiisii Anne Marie waxay ugu jawaabtay iyada oo weliba tiiro dheer ay sii jiiday sigaarkii ay gacanta ku haysay. waxaan isku dayayaa in aan barto, waxaan isku dayayaa inaan biri la kulmo, waxaan isku dayayaa inaan kuu ballamiyo, laakiin fiiri sida ragga ugu xoonsan yihiin, xitaa uma malaynaya inayna siin doonaan jaanis aan iyada kula kulanno oo aan ku ballansano. markaas ayaa George Molkhu u jawaabay xaaskiisii isaga oo sigaarkiisii saddexaad sii shidanaya misna fakaraya, waxaana uu yiri, wax yar kadib isku day in aad dhex gasho dadka islamarkaana la kaftanto, kadibna aad sheeko u bilowdo iyada. markaas ayay naagtiisii qosashay iyada oo aad moodo in maskaxdeedii fikrad caqli badan ay ka soo maaxatay, waxaana ninkeedii George ay ku tiri iyada oo aad moodo in shaqaalihiisii oo amarkiisii fulinaya in ay tahay oo kale, waxba ha ka walwalin adiga, gabadhan quruxda badan biri marti ayay inoo tahay, si wanaagsan ayaan isku fahmi doonaa. daqiiqada kadib xaaskii George ee Anne Marie waxay ahayd mid hoolka xafladda ku dhex socota, weliba qaab xaraga leh iyo soo jiidasho. waxay ahayd gabar taqaana qaabkii ay dhidignimadeeda u soo saari lahayd, iyada oo ku labisneed labis aad u qurux badan, kaasi oo soo saaraya xubnaha ugu jiidashada badan ee jirkeeda. inkastoo Anne Marie ay dhaaftay da'dii soddomaadka, haddana waxay ahayd gabar is-haysata misna taqaana sida jirkeeda ay u dhalaalin lahayd. waxay ahayd indha buluug oo weji dhuuban iyo qoor aad u dheer, sidoo kale waxay lahayd san dheer oo dhuuban, timo hurdi ah, jirkeeduna wuxuu ahaa mid is-haysta oo soo jiidasho leh. ninkii arkaana dareenkiisa toos ula sheekaysanayo. hana hilmaamin waxay lahayd dhex dhuuban iyo xabad taagan, waxaana halkaasi aad ka fahmaysaa in Anne Marie ay sifo kasta oo quruxa ay lahayd oo ragga ay ku jeclaanayaan, wuxuuna ninkeeda George uu u adeegsan jiray howlihiisa halista badan, iyadana si weyn ayay ugu garab qaban jirtay howlahiisa. markaana aan eegno Shulamit Cohen iyo jaajuuskii George iyo xaaskiisa Anne Marie sheekadii dhex martay. Anne Marie sidii ay u socotay waxay soo gaartay goobtii ay taagneed Shulamit Cohen. markaas ayay Shula Cohen u dhoolla cadaysay, qaab cajiib ahaana u eegtay, iyada oo sidoo kale labiskii ay xirneed oo ahaa mid soo jiidasho leh indhaheedii la raacday. markaas ayayna Marie waxay bilowday hadalkii oo Shulamit Cohen ayay ku bilowday inay isbarto, iyada oo ku tiri, waa Madam Molkhu, xaaska ganacsadaha caanka ee George Molkhu, waxaan u malaynayaa inaad hore u maqashay.
xilliga ay aan maari hadalkaasi leedahay waxaa gacanteeda usii taagaysa shuula cohen. markaas ayaa shuula iyada oo gacanta usoo taagtay naagtii faransiiska ahayd balse asalkeeda yahuudiyadda ahayd ee uu qaba george molkhu waxay ugu jawaabtay hadal hoose iyada oo leh, sharaf ayay ii tahay inaan isbarano maadam ama marwa molkhu. markaas ayaa aan maari waxaa iyada oo hadalkeedii soo ceshatay waxay ku tidhi, waxaa aad ii soo jiida qaabka aad tintaada u soo habaysay, waxaana doonaya inaan ku weydiiyo bukuyeerka aad timaha ka soo habaysatay iyo inaad ii sheegto xirfadlaha sare ee qaabkaani tintaada u habeeyey. quruxleydii waadii abujameel xaafadda ahayd deganeed ayaa markaasi dhoollacadeen yarja ka siisay iyada oo weliba si daran isu cajibisa waxaana ay tidhi, waa jan piar, haddii aad doonayso inaad booqatidna aniga waan ku geyn karaa halkaas, waana kuuga caawin karaa. aan maari ayaa markaasi hadalkii qaadatay iyada oo farxad ka muuqata waxa ay tidhi, farxad ayay ii noqon lahayd haddii aad igu sharafto inaad beri gurigayga igu soo booqato kadibna aan isku raacno goobta bukuyeerka ah. shuula cohen dareen ayaa markaasi galay iyada oo isweydiisa sababta ay gabadhaani uu qabo ganacsadaha caanka ay kuugu yeerayso booqashada gurigeeda, balse waxay ugu jawaabtay sidan, anigaba sharaf ayay ii tahay midaasi, balse saacadee iyo waqtigee ayaad doonaysaa inaan kugu soo booqdo gurigaada. markaas ayay aan maari farxad ee dareentay waxayna ugu jawaabtay shulaamid cohen iyadoo usii taagaysa warqaday ku qoran tahay ciwaanka gurigeeda. beri duhur kadib saacadda 4 galabnimo haddii ay suurtagal tahay waad ii imaan kartaa. markaas ayaa shuula cohen warqadii ciwaankii ay ka qaadatay iyada oo boorsada gashatay waxaana ay aan maari ku tiri, waxaan ka iloobay inaan ku dhaho saakadaada aad ayay u qurux badan tahay, waana saakadii ugu quruxda badneed ee xafladda caawa aan ku dhex arko ayaa ku naqshadeeyey. markaas ayaa aan maari iyada oo jawaab laga sugayo waxa ay sii jiidatay cabidii sigaarkeeda si kibir ay ku dheehan tahayna iyada oo u jiidaysa waxay tidhi, waxaa caado ii ah inaan labisyada aan xirto in lagu habeeyo magaalada Paris ee Faransiiska, waxaa la igu naqshadeeyay goobta lagu magacaabo Cristiano Dior. shuula cohen iyada oo markaasi sii eegaysa labiskii aan maari waxa ay tidhi, waxay u muuqataa inaad dooq wanaagsan aad leedahay, sida dooqa wanaagsan loo xushana waa taqaanaa, waxaan jeclaan lahaa inaad majaalkaani talooyin aad iga siisid. aan maari markaan jawaab ayaa laga sugayaa oo waxay tidhi, anigu waxaan kala bar waqtigayga aan ku qaataa sidii aan u xulan lahaa labiskayga, waxaan rajaynayaa inaad adigana macaamil aad ka dhigatid xarumaha Cristiano Dior, waayo aad ayay kuugu baxayaan moodalka uu naqshadeeya ninkaas. markaas ayaa shulaamid cohen jawaabtii ugu koobnayd ay siisay, waan rajaynayaa. kadib markii xafladii ay soo dhammaatay ayaa george iyo xaaskiisa aan maari molkhu waxay ku soo dhaceen gaarigoodii waxaana ay muddadii ay jidka ay kusii jireen misna gaariga ay saarnaayeen ay ahaayeen kuwa ka sheekaysanaya shuula cohen iyo kulankoodii, taasi uu doonaya george inuu howlihiisa ay ka caawiso islamarkaana ay la shaqayso. waqtigu wuxuu ahaa 1948 waxaa gabagaba ahaa qorshihii sahiyuuniyadda iyo shirqoolkii weynaa ee lala maaganaa dhulkii reer falastiin. wuxuu george molkhu uu ahaa mas-uulka yahuudda u qaabilsan howlaha yahuudda lagu tarxiilayo ee la geynayo dhulka falastiiniyiinta, waxaana xarun u ahayd magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan. george howlahani wuxuu mas-uul ugu dhigay xafiise ee wakaalada sirdoonka yahuudda ay ku lahaayeen magaalooyinka rome, faransiiska oo baariis ah iyo qubrus, waxaanay wakaalada george ay siin jirtay qiimo kasta oo lacag ah oo uu dalbado si uu howlaha uu hayo ugu dardargeliyo. sida aad ka fahanteen sheekooyinkii hore ee sirdoonka, howlaha caynkan oo kala ah 1 iyo 2 qof laguma qaban karo, waxaana mas-uul walba uu u baahan yahay dad u adeega misna howlgalladaasi uu xil saaro. waxaana sida caadiga ahaydba george caawin jirtay koox rag iyo dumar isugu jirtay, balse xilligan doorashadiisa waxay ku dhacday shuula cohen. wuxuu doonaya inay ku caawiso howlihiisa gaar ahaana maadaama ay tahay yahuudiyad sidoo kalena ay tahay gabar dhalinyaro ah oo aad u qurux badan, taasi oo taqaana luqadaha carabiga, cibraaniga, faransiiska iyo ingiriiskaba. kadib markii uu dagaal uu ka dhex qarxay yahuudda iyo carabtii kasoo horjeeday waxay howlaha tahriibinta yahuudda ay noqotay mid aad u adag, hase yeeshee george waxa uu sii watay howlihiisii isagoo yahuudda u tahriibin jiray dhulka falastiiniyiinta, waxaana waddo u ahayd waddanka lubnaan oo uu sii marsiin jiray, balse xilligaani taxadar weyn ayaa ku jiray maadaama howlaha tahriibinta ay qasab tahay in xuduudda 2 waddan oo carbeed ay ka gudbaan oo kala ah lubnaan iyo falastiin, halkaasoo isaga kala gooshayaan iyada oo weliba xaalad dagaal lagu guda jiray.
georgiana wuxuu xiriir joogta ula lahaa xafiisyada wakaaladda sirdoonka yahuudda, sidaasi awgeedna shuule cohen wuxuu u arkayay qofka ugu macquulsan ee howlahan ka caawin karayay. markaana aan eegna sida ay shulamit cohen ay ku noqotay gacanyaraha qaaska ah ee george molkhu. george ayaa markii isaga iyo xaaskiisa markii ay kusoo laabteen gurigoodii waxa uu weydiiyey, sidee ayaad u aragtaa gabadhan quruxda badan? mase kula tahay inay hawshaani ay ka soo bixi karto? ma kula tahay qof iska caadi ah sirteennana qarin karaa, mase baxar ayayna gelin kartaa? markaas ayaa aan maari iyada oo ka fikiraysa jawaabaha saygeeda ee weydiiyey waxa ay ku jawaabtay, waxaan marsiin doonaa tijaabo aad u daran. haddii ay tijaabada ay ku baasto, gacanyaro kuwa qaas ah ka dhigo. haddii ay ku dhacdana, muuqeeda iska qari gebi ahaan. hawsheeda adigan kuu daynayaa si aad mowqifkeeda daraasayn aad ugu samayso, xaalkeedana aad u fahanto. iyadoo marnaba kuma khasaaraysid adiga, waayo mararka qaar waxay ku noqon kartaa qofku dareen bedela, waqti wacanna aad la qaadan kartid. markaas ayaa george molkhu waxa uu xaaskiisii uu ku yidhi, miyaadan adiga kama seeraynin iyada? aan maari oo jawaab siinaysa ninkeedii waxay tidhi, ma waxaad doonaysaa inaad shuruudda aan wada galnay aad ka baxdo? ma ilowda inaan aniga iyo adiga aan ku heshiinay in mid kastoo naga mid a xorriyaddiisa toos loo siiyo, nolosheenana qaabka aan rabno aan annaga ugu noolaano. george molkhu markaasi waxa uu soo xasuustay ballantii ay wada galeen isaga iyo xaaskiisa, waxaana isaga oo joojiyey hawshii uu hayay islamarkaana eegaya xaaskiisa aan maari uu ku yidhi sidan, horta waaba iloobay xaggee ku dambaysay sheekadii adiga iyo wiilka yar ee caashiqa aad ka dhigatay? markaas ayaa aan maari waxay ku jawaabtay, waa mid lacnad ay ku dhacday, waayo maba isiya jaanis aan kula raaxaysto qof aan isaga ahayn. aad ayuu ii jecel yahay, si daranna wuu iiga masayraa, mar kastaa wuu ila socdaa. weli mashaarkii miyaa siisaa, mise haatan wuu isdabaraa isaga? masaariifta qaar waa daruuri oo aniga ayaa siiyo, sida kirida guriga, lacagta dharka iyo waxyaabaha la midka ah. balse baryahan dambe wuxuu shaqo ka helay mid ka mid a shirkadaha caymiska. waa arrin wanaagsan. waxaan kuu rajaynayaa nolol raaxa leh. cafwan xabiibi, balse waxaad ogaataa haddii aadan ahayn nin wanaagsan adiga, misna arrinteeda ila fahma, howlaha aan ku qabto inaan marnaba daacad kugu ahaadeen sidan haatan kugu ahay. markaana aan eegno dhambaaladii sirta ahaa ee ka yimid talaabiib. markii yahuudiga george molkhu iyo xaaskiisii ay gaareen guriga ayaa george qolkiisii uu usii gudbay. waxa uu bilaabay inuu daraaseeyo dhambaalada muhiimka iyo warbixinada halista ah ee maalin kasta ka soo gaaraya xafiisyada wakaaladaha sirdoonka yahuudda ee muusaad. balse xaaskiisii aan maari waxay bilowday inay wacdo wiilkii caashaqa kala dhexeeyey, gaar ahaan nolosha sariirta oo keliya ay wadaagi jireen, kaasi oo da-diisa waqtigaasi ay ahayd 29 sano jir. waxaana aana maari wiilkaasi ay la kulanto ugu dambeysay muddo 3 maalin ka hor. george dhankiisa waxa uu sii watay howshiisii daraasaynta dhambaalada soo gaaray, waxaana habeenkaasi diiradda u saarnayd mowduucyo la xiriira tahriibinta yahuudda lubnaan ku sugan in gudaha waddanka falastiiniyiinta la geeyo, kuwaasi oo lagana gudbinayo xuduudda lubnaan uu la wadaaga falastiin, gaar ahaana dhanka koonfureed. george waxa uu ka mid ahaa boqolaal rag ah oo yahuudda uga howlgala, gaar ahaan wakaaladooda sirdoonka howlahaas, waxaana howshiisa markii hore ee ka bilaabanaysay inuu yahuudda ku dhiirigeliyay inay dhulkooda uu yahay falastiin, sidaasi awgeedna looga baahan yahay inay halkaasi ay tagaan si xuquuqdooda ka maqan ay usoo dhacsadaan. wuxuu sidoo kale dadka uu ku caawin jiray wax kasta ay u baahan yihiin, isagoo howlahooda iyo howlaha tahriibintaba fulin jiray. george isaga oo shaqadiisii wata ayaa maankiisa waxaa kusoo dhacday quruxleydii deganeed xaafadda waadi abujamiil oo ahayd shuule cohen, taasi oo xafladda uu kula soo kulmay. wuxuuna durbadiiba naftiisa u sheegay isagoo la sheekaysanaya sidan, waxaan ka dhigan doonaa gacanyarahayga qaaska ah, waayo waxay aqoon u leedahay luqadaha cibriga, carabiga, faransiiska iyo ingiriiska. waxay iga caawin doontaa in dhambaalo badan oo luqada cibriga ku qoran ay igu turjunto carabi. waxaana intaasi usii dheer inay tahay gabar aad u qurux badan oo wax badan ay qaban karta. george wuxuu ahaa yahuudi qabiir ku ah howlaha waxbasaasida iyo sirdoonkaba, wuxuuna ogaa inuu ku tiirsanaan karo shuule cohen. ku tiirsanaanteedana aysan ahayn keliya tarjumidda luqadaha, balse sidoo kale wuxuu ogaa quruxdeeda ilqabad kale inay saameyn ay ku dhex yeelan karta bulsho kasta oo ay dhex gasho, taasi oo ka caawin karta howlo badan oo u baahnaa in loo qabto. george wuxuu naftiisa u sheegay inaanu shaki ku jirin inuu waqtigaana uu helay gabadhii uu indhawaale ahba raadinayay, naftiisana ay u baahnayd. wuxuu go'aansaday inuu gacanyaro howlihiisa ku garabsiisa uu ka dhigto, islamarkaana ka caawisa sidii ay u geli lahaayeen xafiisyada ragga ugu waaweyn siyaasadda gudaha dalka lubnaan, halkaas oo sir kasta ay ugu baahan yihiin ay iyada uga keeni karto, waana sababtay u noqotay jaajuusada ugu weyn ee bariga dhexe.
wakhtigaasi oo George naftiisa uu la sheekaysanayo islamarkaana ku qancinayo in gabadhaani ay tahay midii uu raadinayo xaaskiisii Anne Marie. waxay teleefoonkay kula hadlaysay wiilka ay la raaxaysan jirtay ee la oran jiray Albert, iyada oo ku qalqaalinaysa inay dhaqso u kulmaan si ay waqtiga u wada qaataan. haatan maxaa samaynaysaa Alberow? waxaan sugayaa saaxiib aan leeyahay oo aan doonayo inaan howlo muhiim ah kala hadlo. Markaas ayaa waxay tiri iyada oo qoslaysa, kormay howlaha caadiga ah muhiim ay ku noqdeen adiga? waxa uu ku jawaabay Albert isaga oo si hoose u hadlaya, in dhawaalaaba howlahayga gaarka ah ayaan diiradda saarayay oo muhiim ii ahaa. Anne Marie oo arrinta la yaaban ayaa ku jawaabtay, ka waran haddii aan hadda gurigayga aan kugu waco oo ii imaw aan ku dhaho? macquul ma ahan oo ninkaadii saacaddan soo guriga ma joogo. maxaa kaa galay midaas adiga? marba haddii aan aniga aan ahay qofka gurigiisa loogu tagaayo iyo qofka ku wacdayba. kolay adiga le mas-uulka ah wixii halkaasi ka dhaco oo dhib ah oo ku soo gaara, aniga waan kuu soo socdaa waana ku iman karayaa isug. Anne Marie markaas ayaa ay guda gashay ninkeedii George oo weli qolkiisii ku jira dhambaaladiisiina akhrisanaya inay ka dhaadhiciso sheekada oo waxay tiri, waxaan dareemayaa hurdo la'aan mana awoodo inaan dhaqso seexdo caawa. George ayaa markaasi intii uu madaxiisii kor u soo qaaday islamarkaana xaaskiisii eegay waxa uu ku yiri, haddii ay sidaasi tahay orod oo u taga saaxiibka, balse ha soo daahin oo keliya. markaas ayay Anne Marie iyada oo gacanteeda garabka ka saaraysa George si tartiib ahna u salaaxaysa waxa ay ku tiri, caawa ma doonay inaan guriga ka baxo oo aan meel kale aan aado. George isaga oo dhinaciisa eegaya ayuu xaaskiisii u soo jeestay si fiican oo u fiiriyay sida inuu doonayo inuu ogaado waxa maankeeda ka guuxaya. markaas ayaa waxa uu ku yiri, waxaad doonta samee, adiga xor ayaad u tahay habdhaqankaada. haddiise aad lacag u baahan tahay intaad doonto jaakadeeda oo qolka jiifka taalla kala bax. Anne Marie markaas ayaa iyada oo sugi la'san inta uu ka imaanaya saaxiibkeed Albert hilow iyo xiisan ay u qabto ayaa ninkeedii ay ku tiri xilli gacmaheeda weli ay ku ciyaarsiinaysa timaha iyo wejiga ninkeeda George, dhib miyaa ku jira haddii aan caawa halkan Albert aan ku ballamiyo misna waqti macaan aan kula qaato? George markaas ayuu warqadii oo warbixinta ay ku qorneed uu aqrinayay intuu dhinac iska dhigay xaaskiisii waxa uu ku yiri, ma halkan guriga ayaa doonaysaa inaad ku ballamiso, laakiin kuma fikirin miya waxa ay dadka iga dhahayaan haddii ay arkaan arrintan? sideese saaxiibka ii fahmi karaa inaan ahay? weji noocee ah ayaan kala hortegi doonaa, gaar ahaan haddii uu ogaado inaan guriga joogo xilli naagtayda ula raaxaysanayo. Anne Marie oo doonaysa inay afkaartaasi ninkeeda ay ka saarto ayaa waxay ku tiri iyada oo aad moodo inay dhoolla cadaynayso, aniga howlgal kasta waad ii dirsato waan kuu qabtaa xabiibi. wiilkana waxaan u sheegay in ninkayga uu jiro magaalada Paris, gurigana cidla aan ku ahay oo aan keligay aan joogo. waxaan u malaynayaa inaad adigana farxadeeda aad ka talin doontid oo farxadeeda aad ku farxi doontid maadaama aniga xitaa danahaada oo dhan aan kuu fuliyo horena aan u heshiinay. markaas ayaa George uu aamusay oo xaalkii uu ku cadaaday xilli xaaskiisii ay hadalkeedii ay sii wadatay iyadoo ay ka go'an tahay in ninka ay ku qanciso in caawa saaxiibkeed guriga ay waqti kula qaadato, weliba qolkiisa gaarka ah oo ay ka dhaadhiciso sheeko ay doonayso inay qayb kaga dhigto shabakada sirdooneed, laakiin uma aysan sheegin inay shabakadaasi sirdooneed la damacsan tahay Master Albert. waxaad iga dalbatay inaan kuu soo xirigeliyo Shalaamid Cohen oon kuu soo xirigeliyo oo biri ayay guriga igu ballansan tahay. sidoo kale waxaad iga dalbatay inaan kuu ballamiyo sida hebel waana kuu fuliyey, siyaasi hebel 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 iyo hebelba waana kuu fuliyey. waxaan ku sameeyey wax walba aad doonaysid, balse maanta adiga waxaan kaa dalbaday inaan saaxiibkayga halkan aan kula kulmo, waase iga diiday miyaa? ma ogtahay in habdhaqankaani aad ku burinaysay heshiiskii naga dhexeeyey? sidaas daraadeed haddii ay ka go'an tahay inuusan caawa halkan iigu iman, dhib ma lahan, anigaa u tagaayo, laakiin adiga waxaan kaa doonayaa inaadan mar kale wax howl noocay ahaataba aadan ii dirsanin. Yahuudigii George ayaa markaasi waxa uu bilaabay inuu fikir dheer uu galo isagoo ogaaday siday uga go'an tahay Anne Marie inay caawa waqti ay kula qaadato gurigeeda Master Albert. wuxuu kaloo ogaa in haddii caawa uu ka ogolaado in mar kale uusan ka hor istaagi karaynin in arrintaani oo kale ay dhacdo. dhanka kale waxa uu maanka uu ku hayay howlaha muhiimka islamarkaana lagama maarmaanka ahaa ee u qaban jirtay. markaas ayuu ku yiri isagoo isdejinaya, Anne Marie, adiga waad ogtahay inaan xiriirka aad wiilkaasi la leedahay wax kasta oo ku saabsan anigana waan ogahay, mana isku dayin inaan dhexdiina aan soo galo ama aan kaa hor istaago, balse taasi bedelkeeda waanba kugu taageeray. waxaan kaloo aan ogaa in lacag badan aad siisay wiilkaasi, iyadoo sidaasi ay jirtana aan kugu taageerayo, xorriyadna ayaan ku siinayay. annagana sidaad adigaba ogtahay
waxaan u adeegnaa una shaqaynaa muusaad waxaana macquul ah in wiilkaasi markuu sirteenna u ogaado inuu mashaakil weyn qoorta noo geliyo. Anne-Marie waxay dareentay in George uusan doonaynin inuu nolosheeda uu hor istaago balse halista ka imaan kartaa uu ka baqayo sidaasi aaweedna ay dhegta waxay ugu sheegtay sidan. waxba ma fahmaayo anigaa kuwa ballan qaaday xaaladda aan ku sugannahayna iima suurta gelinayso inaan waxyar xitaa aan sii sugo iyo ogolo please iyo ogolo xabiibi. Markaas ayaa George inta uu dhoolla cadeeyay Anne-Marie waxa uu ku yiri sidee macquul ay ku tahay naag adiga oo kale quruxdaan leh in jirkeeda shakhsigan oo kale uu wax u rabo uu ka sameesto oo ah wiilka yar iyada oo heli karaysa nimanka sarreeya isaga oo kaliya hal eegma ay ku soo jeedan karto. Anne-Marie oo koob qamre ay ku jirto meesha yaalla cabaysa ayaa waxay tiri haddii aan kaaga sheekeeyo waxyaabaha aan sameeyo marka aad dibadda u safarto waad yaabi lahayd waxaad ku qaylin lahayd alla maxaan ahay nimaan wax ogeyn hase yeeshee wiilkan Albert wuu i baahi tiraa aniga sidaan doona ayuuna ii yeelaa. intaasi kadib George Malquu waxa uu xaaskiisa u ogolaaday wax walba oo ku saabsanaa oo ay doonaysay in ninkan lagu magacaabo Albert ay guriga ay kula kulanto. halkaa inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan sheekada Shulamit Kosik-Cohen ama Shula Cohen. waxaa qoray buuggaani Xaatim Qoori waxaana tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb waxyaabaha ku soo jiitay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.